ururada nabadda iyo horumarinta Soomaaliya oo qoygu waxay tahay maadaama waqtiga aad u yeelyahay mar raba inaan ku fogaado xukaasha aan hore uga hadlay laakiin sida aad ka muuqato calaamada ururka ama magaciisa nabadda ayaa horeyso horumarinta way ku xigtaa macnaheedu waxay tahay horumarin lama gaari karo haddaan nabad la helin sumadda sida ka muuqato waxaad aragtaan background-ka waa calankii Soomaaliya macnaheedu waxay tahay waxaan mideeyo aan hiisanayno waa calankii Soomaaliya waxaa dusha meesha ugu koreysa shimbir cad ayaa halkaas maartay duuleyso oo ah nabadii waxaa ka hooseeya geedkii oo ah horumarka haddii aan nabad leeyahin horumarka lama heli karo waxaa ku bahoobay wadamada afarta ah Finland, Sweden, Norway, Sweden iyo Denmark oo xukaash kasoo sheekay kasoo bilowday 2007 markii amxaarada dalka ay soo galeen intii hore xukaash ayaa sheegay waxaan ku daray kaliya inaan goosanay inaan gaarno soo celinta calanka Soomaaliyeed oo background ku nool activity-geena ama waxqabadkeena wuxuu ku salaysan yahay wax kasta oo ururin kara ummadda Soomaaliyeed oo sharaftii iyo karaamadii qaranka Soomaaliyeed soo celin kara in Finland lagu qabto waa ka boodaya maartay hore u soo sheegay waxaan rabaa waxa ugu weyn oo ururku taagan yahay waa nabad iyo horumarin laakiin nabadii waxa ka horeeya dib u heshiisiin in la helo haddaba waxaan rabaa dhowr qodob inaan ka tilmaamo waa maxay dib u heshiisiin maxaa hortaaga dib u heshiisiin Soomaaliya 20 sano ayaa heshiilan waa rikoor caalamka kama dhicin ummad dagaalanto ummadda bilaadanka meel jooga way isqabataa laakiin ummad dagaalanto oo 20 sano aan heshiin waa Soomaaliya ugu horeyso waa maxay cawaaqibka ay keeni karto in maartay Soomaaliya aysan heshiin haddayna heshiin waa maxay wax maxsuulka ama resultka ka dhalan kara halkaas anigu waxaan qabaa dib u heshiisiin uma arko in Djibouti ama Nairobi ama Addis Ababa maartay lagu qabto laakiin waxa uu ka dib u heshiisiin inay tahay mid ummadda Soomaaliyeed dhaxmar dib u heshiisiin saad u aragtaan waxay ka kooban tahay saddex xaraf oo ah dib iyo heshiisiin macnaheedu waxay tahay heshiis hore ayaa jiri jiray nabad ayaa jiri jirtay walaaltinimo ayaa jiri jiray waxaan rabaa dib in loo soo celiyo marka walaalnimada idin sheegaya imagine carruurta aan dhalnay sideedmayadii ama dagaalada ku dhalatay maanta waa 20 jiro waa 30 jiro kelmadda dib u heshiisiin qaamuuskooda kuma jirto sababtoo ma aysan arkin Soomaaliya heshiisa waxay dib u heshiiyaan maartay ma haystaan marka jiilka hadda jooga oo inta fadhiyo soo gaaray Soomaaliya nabada Soomaaliya walaalo ah xil ayaa naga saaray inaan maartay intayna maartay adduunyada lagu waray inaan ka tagin in dib u heshiisiin Soomaaliyeed aan qorino si ubadkeena waa bilaadan oo isqaba doonaan waxay dib u heshiiyaan Soomaaliya